cawaysi wanaagsan khiyaartana dhagaysanaysa ay ku soo dhawaada idaacaddeennan qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 49 mitirban hirarka efemida mawjadaha ku yaala geeska Afrika iyo waliba internetka somali.voa.com. waa fiidnimo talaada ah bisha May waa 7 sanadka 2013 ku soo dhawaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo idiin soo daadihinayaan anigoo ah Maxamuud Ibraahim Cali iyo Sahre Ciile Nuur. waatahay maxamuudow bal waxaynu u gelaynaa qaybtii dambe ee dhalinyaradu ay su'aalaha ku weydiin jireen hadba qofka aanu ku marti qaadno. qaybtan waxaa caawa marti noogu ah Maxamed Ibraahim Guuleed oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Daa'uus taasoo ah shirkaddii ugu horreysay ee Soomaaliya soo saarto diaperka amaba xafaayadda qofka siduu u yaqaano loo xidho carruurta. maxamuud Ibraahim Cali aan idhaahday oo garabkayga fadhiya ayaa ugu horreynta weydiiyey Maxamed Guuleed goorta ay aasaaseen shirkaddaasi Daa'uus. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta shirkadda Daa'uus waxaa la aasaasay dhamaadkii sanadkii 2009 adiga ilaa bilowgii 2010. shirkaddan markii ugu horeysay waxaa laga aasaasay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. shirkaddan markii ugu horeysay fikrad ahaan markii hore waxay ka timid xaaskayga oo tagtay Hargeysa shaqo u tagtay, marka taas bay kow ka bilaabatay. marka anigana maadaama aan backgroundkayga engineering u ahaa markii hore markii dambena business, waxaan isla qaadanay in fikrad ahaan loo baahan yahay. markaas waxaan go'aansanay bal inaan marka hore ka bilaabno Minneapolis. marka sidaa la socoto waxaan soo saarnaa xafaayadaha carruurta Nuna iyo dumarka ee Bilan. markii ugu horeysay horta waxaan ka hirgelinay wadanka Mareykanka gudihiisa. haddana sidaa la socoto ma garatay wadanka gudihiisii ayaan ka wadnaa operationkeennii oo aan muddadii 2 sano iyo barkii ugu dambeeyay. Maxamed, waxaad noo sheegtaa waxaad tahay qof dhalinyaro ah oo Soomaali ah. had iyo jeerna fikraddu ma fududo markii la hirgelinayo. sidee kugu suurto gashay in shirkadaada ay guuleysato adigoo ah qof soo galooti oo ku nool wadanka Mareykanka ayna shirkadaada gaarto caalami ahaan gobolada kale iyo wadamada kale adduunkaba? wallahi horta su-aashaas waa su-aal fiican. aniga ahaan horta personally experience ka ah in shirkad la bilaabo. shirkaddan waxay ahayd tii 3aad aan ka abuuray Mareykanka dhexdiisa oo 2 hore ayaa jiray. markii shirkad la sameynayo waxaa u baahan tahay fikrad marka hore, ta labaad waxaa u baahan tahay karti ah inaad aaminsan tahay adiga inaad wax qaban kartid ama aad soo saari kartid. tan saddexaad waxaa u baahan tahay team adiga kula shaqeeya oo aad u wanaagsan oo hawsha si fiican u qaban yaqaana. tan afraad waxaa u baahan tahay inaad lacagtii ama capitalkii la gelin lahaa businesska aad taqaanid sida loo raise gareeyo. haatana waxaan kusoo dhaweynayaa dhagaystaha jooga Nairobi, Axmed Aadan Axmed. Axmedow, maxaad su-aal weydiin lahayd Maxamed Ibraahim Guuleed? marka hore assalaamu calaykum waa salaamaya martida barnaamijka Maxamed. su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay ma fududa in company macnaha la dhiso ama dad badan oo waxaa jira fikradii haya laakiin investmentigii iyo kartidii iyo wax badan la. marka waxaan weydiin lahaa Maxamed qaabka ay caalamka oo dhan u gaarsiiyey ama meelaha fara badan oo ay ka shaqeyso companigiisa iyo qaabka ugu fudud because wax fudud ma ahan in qof intuu wax alifo haddana uu shaqogeliyo oo intaas macnaha inta hadda sano uu sheegay ay shaqeynaysa. ugu suurta gashay in muddo intaa in la ega uu lacagtiina ku helo oo barnaamij ku rangareyn lahaa ama uu ku socodsiin lahaa iyo qaabka sidee ugu gaartay inuu intaasoo meel uu alaabtii ay gaarto? su-aashaas waa su-aal fiican. horta dhowr qeyb baa u kala qaadi lahaa jawaabaha. tan hore oo aan isleeyahay waa tan ugu muhiimsan in shirkad hirgasho waxaa ka mid a in qofka shirkadda sameeyey ama tiamka sameeyey ay is-aaminsan yihiin ayaga oo ah xataa hadday wixii hirgeli waayaan
ay weli u arkaan ma garatay inay noloshii adduunka ay isku dayeen inay horumariyaan. marka waxaan odhan lahaa ma garatay qof fulay ah ama ka baqaayo inay wixii ay hirgeli waayaan marnaba horta hore uma suurtagelayso. marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu risk taker yahay ma garatay, uusan ka cabsanin inuu risk qaato. tan hore tan labaadna waxaan aada uga celcelinayaa iyadana in qofka marka uu fikradda la yimaado uu wax sameeyo, uu raadsado qof mise laba qof oo ayagana aaminsan in waxaan la socodsiin karo, xag cilmiyeysanna u leh aqoon cilmiyeysan in waxaan sidii loo hirgelin lahaa, oo hadday tahay xagga businesska, hadday tahay xagga finansiga xisaabaadka, hadday tahay xagga engineeriyada, hadday tahay xagga marketingka ama suuq geynta. taasna waa loo baahan yahay oo marka tiamka aada buu muhiim u yahay. iyo tan saddexaad oo ah in qofka waxa asaga uu sameeyey uu marka hore diyaar u yahay inuu asaga lacagtiisa geliyo intuusa horta cid kale waxba weydin. uu marka hore asaga uu ka yahay ma garatay qofka ugu horeeya oo asaga riskigaas qaata. hadduu guri leeyahay uu gurigiisa iibiyo, uu yidhaahdo gurigan aniga iibiyey, lacagteedii oo dhan businesska anaan geliyey, marka dadka kalena waxaan rabaa inay igu soo biiraan. marka waxaa loo baahan yahay saddexdaas shay, qof aan cabsanaynin, qof raadin kara, team wanaagsan isku keeni kara, iyo asagoo noqon kara in uu capital asaga uu leeyahay ama lacag uu leeyahay uu businesska geliyo. saddexdaas shay aada muhiim u ah. maxamedow haddana waxaan soo gelinayaa qadka maxamuud cabdinuur dulyadeen oo joogo magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. maxamuud, su-aasha maxaad weydiin lahayd maxamed ibraahim guuleed? sida laga warqabo maxamed guuleed walaal, soomaalida curinta ama bilaabidda wax aan horey loo sameyn kuma badna, markii laga reebo hal abuuridda sugaanta oo kale. masalan markii aad tiraahdo curin ama abuurid ama alifitaan, maskaxdooda dhaqsadiiba waxay u yeelanaysaa dhinaca sugaanta oo keliya. waxaa muuqata iminka in aan marka qaadnay tilaabo dheer oo curinta iyo la jaanqaadida masalan dhinaca horumarka caalamka ah. mar haddii dhalinyaradii ay aada u horumarinayso inay kambaniyo furaan, inay alifaan oo curiyaan wax aan horey loo sameyn, waa maasha allah, aad baan arrintaas ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. balse haddii aan nahay Soomaali, su-aashaydu waxa ay tahay waxaa la dego ama businesska ama waxyaalaha la habeeyo oo dhan laba qodob oo ah masalan khilaaf soo kala dhexgalo tiamka oo markay wax isla jaan qaadaan oo isla bilaabaan khilaaf soo dhexgalo, iyo qodobka labaad oo ah ku dayasho. haddii hal qof oo halkaas wax ka furto ama wax alifo, isla markii waxaa ku daydo kuwo kale oo ku dhinac qabto oo ku cayriyo. arrimahaasay uga badbaadaa maxamed guuleed labadaas dhinac, labadaas qodob midna ay tahay khilaafka, midna ku dayashada indhala-aanta ah ay tahay. taas waa su-aal fiican. marka bal aan kala qaada jawaabta. oo tan hore qaybtii hore aad tiray hal abuurka soomaalida oo aad ka hadashay, aniga waxaan qabaa soomaalida haddaan laba u qaybino, aan dhahno generation waa generationkii 40 sano iyo wixii ka yaraa ee 20kii sano ee ugu dambeeyey soo kacay, iyo kuwii ka horreeyey hal abuurka waa ku yaryaho, waa runtaayo. waxaan isleeyahay ma garatay gumaysigii iyo wax unbaa maskaxdooda wax ka bedelay. laakiin generationka cusub ee 40kii waxa ka yar ee 20kii sano ugu dambeeyey soo kacay, waxaan aaminsanahay inay jaamacadaha adduunka ugu fiican ka baxeen, maskaxda ugu badan ay leeyihiin. ismana lihi ma garatay waddan kaloo afrikaana ama European ama Maraykana ayaaba ka maskax badan doonaba soomaalida guud ahaan generationkaas. marka rajo weyn baan arrintaas ka leeyahay ma garatay in generationka yar ee soomaalida usoo kacay ay himilo fog iyo wax soo saar badan ee adduunka ay kusoo kordhin doonaan sanadada soo socda. taada labaad ee ah khilaafka soo kala dhex gala tiamka, siyaabo badan oo looga gudbo ayaa jirta. oo waxaa ka mid ah iyadoo marka hore wax cad sida go-aan loo qaadanayo companiga uu cad yahay, iyo qof walba go-aankuu qaadanayo. tusaale ahaan haddaan ku siiyo, annaga companigeena markaan shir isugu nimaano aan fadhiisano, shirka qofka u yeera ee yidhahda shirkaasaan u baahanahay go-aankaas in la gaaro, waxaan marka hore caddaynaa qofka go-aanka qaadanaya qofka uu yahay. dadka kale oo dhanna waxay kusoo kordhiyaan taladooda, laakiin ugu dambeyn qof baa go-aanka qaata, qofkaas go-aanka qaatana sidaasaa loogu dhaqmaa. qalab mise sax wuxuu noqdaba hadhow baa laga wada hadlaa. marka taas macnaheedu muxuu yahay? marka hore waa la caddeynaya, waxaa leeyahay 5 qof halkan fadhisa, go-aankan yaa qaadanaya, hebel baa qaadanaya. okay, qof walba oo kale
taladiisu kusoo kordhinaya, ugu dambeynna qofkii go-aanka qaata ayaa lagu dhaqmayaa. hadhow wixii lagala kulmo ficnaan iyo xumaanba gadaal baa looga wada hadlaya. marka waxaan umalaynayaa taas inay taas tahay in ay aada muhiim u tahay in marka hore laga heshiiyo. tan kudayashada sideedaba business walbo adduunka qof hadduu fikrad la yimaado qof ku dayado ma weynayo, oo ilama aha inay Soomaali kaliya ee gaar u tahay annaga. laakiin waxaa muhiim ah businesskaaga adiga markaa abuuraysa inaad ka fikirtid dad cidda tartanka kula jirta, cidda ay noqon karto, waxyaabaha ay samayn karaan, waxyaabaha aysan samayn karin. marka aad markaasna aad road blocks mise aad hor dhacdid ma garata ayaga si aysan ay kugu dayan karin si fudud. marka maxaa ka mid a waxaa laga yaabaa in tiamka adiga aad leedahay oo kale aysan si fudud isugu keeni karin, in lacagta adiga aa haysatid oo kale aysan isku soo ururin karin, in sida adiga fikrad ahaan mise maskaxiyan heerka aa maraysaan aysan gaari karin. marka waxyaabahaas oo dhan inaad ka ilaalisid ma garatay dadkii tartanka kula jiray inaysan samayn karin, taasaa iyada aada muhiim u ah. maxamedow, shirkadaada daawus intee gobol ama wadan ayay ka shaqaysaa xaadirkan? horta shirkada daawus maraykanka adiga 30 gobol alaabaheeda waa laga helaa oo waa laga iibsadaa, ilaa xataa gobolada ugu fogfog ee Alaska oo kale ah. wadanka dibadiisa marka la yiraahdo Africa adiga ilaa 4-5 wadan oo alaabta ay taalo way jirtaa. horta meesha ugu badanna hadeertaan waa magaalada Hargeysa oo aan hadda 4 ama 5 bilood ugu dambeysay aan si xooga teamka daawus ugu joogay. iyadana hadeertaan ilaa iyo 200 oo store ayay magaalada ka gaartay, ilaa Gaalkacyo, ilaa iyo Boosaaso, ilaa iyo Garowe, ilaa Laascaanoodna waa laga helaa hadda ma garata alaabteeda, oo marka wadankii guud ahaan way ku sii fidaysaa. muddo inteen dhan ayay kugu qaadatay maxamedow in aad meelaha aad sheegtay hadda in ganacsigaada uu ka socdo inaad gaarsiiso shirkadaada? 2 sano iyo bar bay nagu qaadatay hadda. axmed aadan axmed, wax su-aal kaloo aad weydiin lahayd maxamed ibraahim guuleed ma jirtaa? runtii waxaa rabay inaan weydiiyo walaalkii maxamed su-aal ah. kambaniga daawus markaad iskugu imaataan, markuu qof fikrad keeno, malihiin miya group gooni ah oo kasoo kala bixiya intaanan go-aanka la gaarin? maxaa yeelay go-aamada qaarkood waxaa suurtagala inay dhib u keeni karaan ama khasaare u keeni karaan barnaamijkaas oo dhana socda. marka intaana go-aanka la gaarin group kasoo kala bixiya ama barnaamijkaas soo fiiriya intaan go-aanka la gaarin ma jira? su-aashaas waa su-aal wanaagsan walaalkay weydiiyey. group gooniya oo u baxsan inay tala kasoo bixiyaan ma jiro. waxaan sameynaa, waan isku nimaadnaa, analysis ayaan ku sameynaayo dhinac walbaan ka eegnaa fikradda. haddaan doonana budget ayaan intaan u sameyno oo yar ayaan niraanaa bal marka hore hala tijaabiyo oo waxaan hala sameeyo. markaas bal iyadoo oo qarash badan uusan gelin ayaan bal marka hore wax yar ku tijaabinaa, then wixii yaraa baan marketka ama suuqa geynaa, dadkii siday u isticmaaleenaan eegnaa, then markay nagu soo noqoto waxyaabihii aan ka bedeli karna aan ka bedelnaa. then hadday nala fiicnaato aan ognahay in opportunitygii uu jiro, then markaas budget badan ayaa loo sameeyaa oo saas ayaa lagu hirgeliyaa. kamana cabsano in waxa ay hirgeli waayaan. marka groupka daawus group ka cabsado inay wax u hirgeli waayaan maaha. hadday wax noo hirgeli waayaan janiska kale ayuun baan raacnaa haddana, oo what's next aan isweydiinaa ma garata, maxaa tan xiga ayuun baa isweydiinaa. tii horena qaladaadkii dhacay waxaan isku dayanaa inaan ka barano, aanan dib damba ugu noqon. maxamedow, qofka dhalinyarada ah ee Soomaalidu hadda ku dhageysanayo oo fikrad hayo inuu wax sameeyana rabo, maxaad ku waanin lahayd, maxaad dhihi lahayd tallaabadaas qaad? wallahi aniga horta qof walba oo Soomaaliyeed weli gaar ahaan dhalinyarada ee fikradaha waxaan oran lahaa ha ka cabsanina in waxan ay hirgeli waayaan. adiga inta tabartaada samey, weligaa gadaal ha soo eegin, ha ka cabsan gadaashaada ama wax xumaadaan. wax kale ku dhaqaaq samee. waxaa aada muhiim u ah, sababta taas ay muhiim ku tahay waxaa weeye wadanka ama ummad hore uma marto haddaanan laga helin dad risk qaata si ay suuqyada adduunka ama suuqooda ama wadankooda ay u hagaajiyaan. marka hadday hayaan fikrado wanaagsan, waxaan oran lahaa fikradihiina ka shaqaysiiya, isku daya sidaad meel u gaarsiin laheedeen. waxyaabihii idinka hor yimaadana
sida aga bixi laheedeen ka fikira waxyaabaha. aad buu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim guuleed, agaasimaha guud ee shirkadda daa'uus oo ah shirkad samaysa xafaayadaha amaba daybarka caruurta loo xidho, oo u waramayey barnaamijka wicitaankana marti noogu ahaa. waxaana u waramayey maxamuud ibraahim cali oo garabkayga fadhiya. barnaamijkayaga dhalinyarada ee waa go-aankaaga toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay fikradaha wax soo saarka iyo weliba hal abuurka dhinaca dhalinyarada.